walaashay waxaa ka soo daahay guurka jaamacadii ayay dhammaysay guriga ayay joogtay mar walba waxaan arki jiray iyadoo fikirta gabdhaha iyo dadka dariska intaba mar walba su'aalo ayay weydiin jireen oo ah maxaad u guursan laadahay goormaad guursan doontaa gabdhihii kaa yareeraa waa la guursaday iyo arrimo aan qalbigeeda u wanaagsanayn gabadhan mar walba murugta walaasheed waa ay dhibi jirtay mana aysan awoodin wax ay samayso way jeclaan lahayd walaasheed in ay faraxdo oo dadka maalin walba hadalka ku wareeriyana ay ka daayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena soo dhawaada walaalayaal kusoo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub oo aad u xiiso badan alxamdulillaah haddii uu muuqaalkan kusoo gaarayo adigoo caafimaad qaba deh ilaahayo nimcooyinkaadna siisanoo ziyaadi alxamdulillaah waayo waxaa jira dad badan oo adiga kula mid ah oo aadan waxba dheereen oo aadan ka fadli badnayn oo aan haysanin maanta caafimaadka wuxuu ka mid yahay nimcooyinka ugu wanaagsan ee aan la heli karin ee aan la iibsan karin ilaahayo noo ziyaadi intaan haysanina sii intaa kadib walaalaha sharafta leh waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago qiso cajiib ah taasoo laga arkay istikfaarta balse intii aan sii bilaabin qisooyinka aan isxasuusino marka hore salliga xabiibkeena maxamed اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سود هذا ولا ليال وحرم مانت إنا إذن لو ذا قصة ذينا مانت وحي كساب سنتهاي gabadhan gabar la dhalatay oo walaasheed ahayd ayaa waxaa ka soo daahay guurka waxbarashadii ayay dhammaysay jaamacadii ayay ka baxday guriga ayay joogtay waxaa dhacday in gabdhihii ayada la midka ahaa iyo gabdhihii ka yaryaraa oo idin la guursaday laakiin ayada weli calafkeeda ama nasiibkeeda uusan u imaanin mar walbo dadka waxay dhihi jireen heblaayo waa la guursaday maxaa adiga kugu dhacay goormaa guursan doontaa yacni dadka ma dareemaynin in waxaan ay gabadhan gacanteeda ku jirin laakiin ay tahay qadar ilaahay oo nasiibkeeda u dhiman yahay aad ayay ugu dhibi jireen ugu wareerin jireen gabadhan markii dambe waxay dareentay niyad jab waxay noqotay qof mar walba iska fikira qof iska murugsan walaasheed ayaa arinteeda aad uga xumaatay iyada ma awoodin inay ka farxiso laakiin haddii ay awooddo way ka farxin lahayd mar walbana arinka walaasheed wuxuu ku haan jiray murugo fara badan waayo mar walba waxay ku ahayd murug gabadha walaasheeda oo murugsan oo fikiraysa marmarka qaar xataa way isla hadli jirtay waayo gabadhan walaasheed ayay u fiirsan jirtay oo xaaladeeda ayaa murug ku haysay si gooni ayay ula socotay ayadoo aysan dareemeynin waxaa dhacday gabadhan in ay mar walbo jeclaan jirtay ee raadin jirtay si ay walaasheed uga farxiso waxaa dhacday maalintii dambe ayadoo iska fiirsanaysa moobeelkeeda inay aragtay sheekh ka hadlayo istikfaarta iyo faa'iidada ay leedahay iyo dad uu alle subxaanahu watacaala markii ay istikfaar ama dambi dhaaf weydiisteen uu ilaahay riyooyinkooda u rumeeyey uuna yiri sheekhi dambiyada qaar waxaa kaa hortaagan ama in lagu dambi dhaaf waxaa kaa hortaagan oo adiga baahiyahaaga marmarka qaar kaa xijaabi karo waa dambi aad gashay yaad alle subxaanahu watacaala u toobad keento dambiga ma ahan mid weyn kaliya inuu yahay dambi yar ayaa jiro waxaa jira dambi aad ogtahay waxaa jira dambi aadan ogeyn marka qof mu'min haddaad tahay istikfaarta mar walba muhiim ayay ku tahay waayo adiga dambiyad aad gelaysid qaar ka mid ah adigoo ogeyn ayaad geli kartaa waxaa laga yaabaa qof inaad wax ka sheegtay ama qof aad dhibaataysay ama aad qof xamatay aadan isdareensaneen ama aadan is ogeyn marka istikfaarta iyo toobadkeenka mar walba waa muhiim waayo waxaad ogtahay iyo waxaad ogeyn ayaa jira mar walba inaad isnadiifiso qofka waa uu qabaystaa waa uu weysaystaa waa uu nadiifsadaa jirkiisa sidaas si lamid ah ayaa loo baahan yahay dambiyada in lisaga nadiifiyo istikfaarta iyo dambi dhaafka iyo soo laabashada mar walba qofka inuu noqdo qof ilaahay subxaanahu watacaala u soo laabto oo dhaho ilaahu ii dambi dhaaf astaghfirullah wa atuubu ilayh gabadhan markii ay aragtay muuqaalkaas waa ay faraxday waxa kaliya ay samaysay waxay xitaa walaasheed kumay dhihin adiga istikfaar suusan samay ma aysan dhihin ee waxay bilowday inay alle subxaanahu watacaala u barido walaasheed ilaahayna inuu u dambi dhaafo ay u weydiiso yacni ilaahay waxay u weydiin jirtay walaasheed inuu u dambi dhaafo ilaahay waxay u weydiin jirtay guur wanaagsan inuu siiyo mar walbana gabadhan waxay akhrin jirtay istikfaarta maalintii ay ogaatay ilaa iyo
maantadan la joogo waxay waday istighfaarta. maxaa dhacay gabadha markii ay bilowday istighfaarta? gabadha markii ay istighfaarta waday 2 isbuuc muddo ah markii ay waday ayaa waxaa dhacday in wiil wanaagsan oo ahlu diin ah oo maasha Allah ah oo gabdhahii hore u guursaday iyo kuwa guursan doonaba qof saas oo kale ay rabi lahaayeen inay guursadaan, oo xitaa dadkii xaafadda joogay gabadha markii la guursaday ay dhaheen gabadha intaas joogtay sidee ninkan wanaagsan ay ku heshay. in uu la soo xiriiray gabadhii ayuu la soo xiriiray. markii uu la soo xiriiray waa ay wada hadleen. wuxuu yiri aniga waxaan rabaa inaan ku guursado, guur ayaan diyaar u ahay, waliba ma rabo in waqti badan aan hadal iyo wadno, aniga guur ayaan diyaar u ahay, familkaaga ayaan u imaanayaa, arintaas ugow. gabadhii waa ay soo dhaweysay, familka ayuu u imaaday, reerkiisa ayay iska baareen, gabadhii waa laga fiiriyey. wuxuu noqday nin wanaagsan oo ahlu diin ah oo dad wanaagsan ka soo jeedo, oo gabadhii ay isku geeyaan ama isku da'ayeen oo maasha Allah ayuu noqday. gabdhihii iyo dadkii xaafadiina waxay ku xamanayeen gabadhii sidee ninka wanaagsan ku heshay gabadha intaan oo sano joogtay oo guurka uu ka soo daahay. ugu dambeyn wax walba Ilaahay ayaa qoro, Allah subhanahu wa ta'ala gacantiisa ay ku jiraan, cid wax ku haysana malahan. hadaad Ilaahay baridana baryadaada waa uu ajiibayaa. ilaahayna wuxuu yiri ana inda dhanni abdi bi. hadii aad Ilaahay ka malayso in uu wax walba ku siinayo, Ilaahay waa uu ku siinaya. laakiin hadii aad adiga mar walba mala xun aad malaysan tahay oo aad isleedahay waxaan ma helaysid, waa xaqiiq waxaas ma helaysid, waay adiga niyadaada siday tahay ayuu Allah subhanahu wa ta'ala ku yeelayaa. waana xadiithul qudsi. sidaas ayuu gabadhii ninka lagu siiyay, waa uu guursaday. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa guurkoodii u qurxiyay, awlaadna waa uu siiyay. istighfaarta waxay leedahay cajaa'ib iyo mucjisooyin aad iyo aad u fara badan. qofka mar walba inuu iska istighfaarsado ma ahan dambi miyaan galay saas kaliya ma aha. adiga waxaa jiro dambiyaal aad ogtahay, dambiyaal aadan ogeyn, dambiye yaryar kuwa waaweyn. markii aad istighfaarsanayso in Allah subhanahu wa ta'ala dhammaan dambiyadaada ku dhaafo, waayo waxyaalaha qaar dadka waxaa ka hortaagan dambi ay galeen. sidoo kale waxyaalaha qaarna waa imtixaan oo qofka asigoo dambi uusan galin ayaa waxay dhici karta in Allah subhanahu wa ta'ala uu ku imtixaamayo. marka in la sabran aad ay muhiim u tahay. astaghfirullah wa atuubu ilayh waa wax fudud, waa wax Allah subhanahu wa ta'ala dambiyadaada kuugu dhaafayo. in aad si niyadna oo la imaato oo aad niyeysato ay aad muhiim u ah, waayo inama al-a'maalu bin-niyaat. wax walba waa niyada. muhiimada waxaa waaye waxa niyadaada ku jira adigoo istighfaarsanaya in aad niyadaada ay maqan tahay ama meel kale ay jirto ma aha. waa in aad niyadaada ku soo xaadirisaa in Allah subhanahu wa ta'ala aad ka rajaynayso inuu dambiyada kuu dhaafo, in adduun iyo aakhiraba uu meel wanaagsan ku mariyo. ومahadsantiin walaalaha sharafta leh. qisadeena maanta halka ay inoogu eg tahay. istighfaarta qaabka loo akhrinayo waa astaghfirullah wa atuubu ilayh, astaghfirullah wa atuubu ilayh. gabadhan in cayiman maysan akhrinin istighfaarta, aad ay u laazimi jirtay kaliya in cayiman ama in kooban ma aysan akhrin jirin. waxayna u niyeysan jirtay inuu Allah subhanahu wa ta'ala gabadhan walaasheeda ah oo guur wanaagsan siiyo. ilaahay ayaa niyadeeda iyo riyadeedina u rumeeyay, ayada iyo walaasheedna ka farxiyay. ومahadsantiin walaalaha sharafta leh. muuqaalka meesha hadda soo gaartay like inoo saara si uu u gaaro walaalo badan iyo asxaab badan oo iga faa'iideystaan, una share gareey maxaa yeelay khayrka ayaa mudan mar walba in la faafiyo. asxaabta nagu cusub soo dhawaada, asxaabtii hore inoo la joogteen waa mahadsantihiin walaalaha sharafta leh ee mar walba nagu xiran ina dhiirigeliya ee commentiyada quruxda badan noo soo qora. waa mahadsantihiin. intii xanuunsan Allah caafiyo, intii dhibaato haysatan Allah ka dulqaado. waalidiintiina soo barbaariyeen soo koriyay intana la soo ekaysiiyeen Allah subhanahu wa ta'ala dambigoodii ha dhaafa iyo dambiyadeenaba. ilaahay subhanahu wa ta'ala jannatul firdaws al-a'la nagu kulmiyo. waa mahadsantihiin walaalaha sharafta leh. wassalaamu calaykum.